bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idilahaantii baddaawadayaal ku soo dhowaada war waxaannu idiin haynay oo aamintan oo kale aad ka daawataan warbaahinta goolla miidhiya. daawade haddii ay kuu tahay markii kuugu horraysay ay ku soo gaadhaan muuqaalada iyo warbixinadaannu barta soo gelinno, waxaannu kaa codsanaynaa inaad nagu dhiirigeliso sabskrayb. waa tahay daawadayaal, haddii aynuu gudagallo wararkeena. baarlamaanka dalka lubnaan ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi yeelanayo. ra-iisul wasaarahani ayaa waxa uu bedelayaa xukuumaddii iscasilaadiisa ee sababta u ahayd qaraxii sida qumbuladda uga dayaamay magaala madaxda caasimadda u ah dalkaasi ee bayruud. ra-iisul wasaarahani ayaa lagu wadaa inuu soo dhiso xukuumad ay u badan yihiin baarlamaanka dalkaasi. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ayaa waxa uu ku guulaystay codad gaadhaya 90 cod, halka musharaxiintii kale ee kula loloomayay kursigaasi ay iyagu heleen codad ka yar 17 cod. ra-iisul wasaarahani ayaa waxa uu xulafo dhow leeyahay ururka xisbillaah iyo weliba ra-iisul wasaarihii xilka laga faramuroojiyey ee Saacad al-Xariiri. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ayaa markii uu ku guulaystay kursiga waxa uu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad leh xirfad iyo khibrad waaye aragnimo dheer ay ku dheehan tahay si loo hirgeliya buu yidhi isbedelada lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada. ra-iisul wasaaraha cusub mustafe adib ayaa waxa uu ahaa safiirkii waddankaasi u fadhiyayay dalka Jarmalka ilaa 2013. sidoo kale waxa uu ahaa muddo 20 sano ah la taliyihii gaarka ahaa ee bilyaneerkii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Mr. Najib. ra-iisul wasaarahani ayaa waxaa loo arkaa inuu aad ugu dhow yahay xisbiyada waaweyn ee dalkaasi. ra-iisul wasaarahan cusub ayaa sidoo kale guushiisa ay dad badan u arkaan inay sabab u ahayd wadaxaajood ay muddooyinkii ugu dambeeyey lahaayeen baarlamaanka dalkaasi iyo madaxweynaha waddankaasi Masar Michel. dhanka kale, dadku waxa ay u arkaan inay guushiisa sabab u ahayd faragelin uu madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ku hayay dalkaasi taniya intii uu qaraxii sida qumbuladda ka dayaamay dalkaasi ee sababay dhimashada iyo dhaawac ka dhacay dalkaas. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqashooyin ku yimid dalkaasi, isagoo booqashadii ugu dambeysayna ku yimid habeennimadii Isniinta. Mr. Macron, madaxweynaha dalka Faransiiska, ayaa markii uu soo gaaray caasimadda dalkaasi ee Bayruut waxa uu ku baaqay siyaasiyiinta gaar ahaana ra-iisul wasaareyaashii xilka laga tuuray in ay ka heshiiyaan arrimaha siyaasadeed ee ay ku mashquulsan yihiin. dowladda dalka Suudaan ayaa heshiis nabadeed la gaartay kooxaha fallaagada ah ee ka soo jeeda gobolka Darfur ee dalkaasi. heshiiskan ay wada gaadheen dowladda iyo ururka fallaagada ah ayaa waxa uu dhigayaa in la mideeyo ciidamada iyo jabhadda. dowladda Suudaan iyo isbahaysiga ugu weyn mucaaradka ayaa ku heshiiyey maanta Isniina in la soo afjaro colaadda 17 sano jirtay. jabhaddan oo lagu magacaabo SRF oo ay ka mid yihiin kooxo kale oo fallaaga ah oo ka soo jeeda gobolada koonfurta sida gobolka Kordofan iyo Blue Nile, ayaa heshiiska nabadeed waxa ay ku kala saxeexdeen xaflad weyn oo ka dhacday caasimadda dalka koonfurta Suudaan ee Juba, oo iyadu martigelisay islamarkaana gacan laxaad ka geysatay sidii loo dhammayn lahaa wadahadallada dabada dheeraaday ee muddada dheer u socday ururka fallaagada iyo xukuumadda dalkaasi. duulimaadkii ugu horreeyey abid oo ay la socdaan diblomaasiyiin Maraykana iyo Israa'iiliyiin ayaa ka degay Imaaraadka Carabta. diyaarad nooca ganacsiga ah oo ay la socdaan wafdi heer sare ah ayaa ka soo duulay caasimadda dalka Israa'iil ee Tel Aviv, waxaana si toos ah uga degeen gagada diyaaradaha ee Abu Dhabi. wafdigani ayaa waxay u socdaan sidii ay u soo xoojin lahaayeen xiriirka ay yeesheen Imaaraadka iyo Israa'iil, waxaanay diyaaradani siday kaaliyaha ugu sarreeya madaxweyne Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. diyaaradani ayaa waxaa dusha kaga xadhanaa nabad, kaasoo ku qornaa afafka Ingiriisiga, Carabiga iyo lahjadda Yuhuudda. xiriirkan ay dhowaan yeesheen dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ayaa waxaa si weyn uga cadhooday qaar badan oo ka mid ah dalalka Islaamka, iyada oo ay dalalka qaar xiriirkii u gooyeen dalka Imaaraadka Carabta sababta la xidhiidha Israa'iisha ay la yeesheen xiriirka. Imaaraadka ayaa isagu dhankiisa aan weli wax hadal ka soo saarin, laakiinse xukuumadda Washington ayaa shaacisay in xiriir ganacsi u dhex maray dalalka
Israa'iil iyo weliba Imaaraadka Carabta. kiisaska coronavirus ee dalka Mareykanka ayaa gaadhay ku dhowaad 6 milyan oo kiis iyadoo ay kor u kaceen tirada dadka laga helay magaalooyinka Iowa, Minnesota, North Dakota iyo South Dakota sida ay maanta diiwaan gelisay hay'adda caafimaadka ee dalkaasi. waxaa sidoo kale xanuunkan u dhintay dad ka badan 183,000 oo qof sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins University. tirada guud ee dadka uu xanuunkani saameeyay ayaa adduunka oo dhan dhaaftay 25 milyan oo qof iyadoo tirada dhimashadu ay cagacagaynayso 844,000 oo qof waxaana ka bogsaday dad ka badan 16,5 milyan oo qof. geesta kale waddanka New Zealand ayaa amaro adag duldhigay dadkiisa isagoo oo khasab kaga dhigay inay xidhaan afxidhka xanuunka laga xidho. waxaa sidoo kale bandow lagu soo rogay Auckland oo dib loogu arkay kiisas cusub oo coronavirus ah.